arrinta wada hadallada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirkii London ayaa golayaasha oo ogolaadeen la wada hadlo shirkaana waxa ka soo baxay inaynu wada hadalno walaba dawladda Soomaaliya waa talaabadii hore soo hadalkeenu ku bilaabmay wada hadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dawladood oo siman waxaan ku dhamaanaya laba dawladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda la isku dhexgalayo waxa la yiri in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ay soo socodka waliba bracket baa la geliyay saddex qodob sportska iyo culture-ka dhaqanka culture dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business hortee buu bilaabmay lacagteena iyo shirkadda isku muraaqay isu socodku dad Soomaaliyeed oo walaalo uu iska socdaa wixii isdhexgalaya horta siyaasad iyadoo way reeban tahay sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka xeer baa joojiyay kuma jirto qofkii siyaasi ama siyaasad u taga intuu iska taga siyaasad ka qayb galay waa dambiile qaran isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaar shaabta kubadda yaa la doonayaa inay tagto koox waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Somaliland sita oo dawladda Somaliland dirtay oo magaca Somaliland ku ciyaaraya koox muusiga tagaysa ama ruwaad tagaysa waxay tagaysaa baasaboor Somaliland iyo calanka Somaliland iyo magaca Somaliland qof kaliya uu tagi kara qof muraadi hadduu socdo waayirki laakiin wixii institution ama kooxi waxay ku tagi karaan baasaboor Somaliland calanka Somaliland magaca Somaliland fiisa ka soo yeeysaysa Muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii inta la waayo cidina tagi mayso way isgaadi mayno iyagu ma ogola inay saa yeelaan fiisa bixiyaan waxaynu arkaan gobolada waqooyiga inaguna tabayo ka tabaye waxaan wareer laba dawladood nahay qof aan fiisa calanka Somaliland iyo baasaboorka Somaliland loo fiisaynayni isugu tagi mayno ma xili karno shaqa lacagta isdhex gashay businesska isdhex galay ma xili karo dee qofka sodonkiisa soo siyaarinaya ama qofka ka u tagaya ama qofka shakhsiga muraadkiisa tagaya imika hadda radna awood oo socda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan oranayaa Somaliland marmar baan la yaabaa dadka baqday ay waxba sana de horta nimanka waxaan rahnaa xornimadii naga luntay 60kii way luntay raad aynu nahay ninka raacadina dib walba u mara baqdo shakiga ma qaba isaga baadisa doonaya qolada geela raadisa markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay saalada ay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo 7 cisho qatana orday bay hadal haduu dhow yahay daalkii uu ka baxa anu waxaan qabaa maanta inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonay ay dhowdahay oo meel laga daariyo meel laga wada cabida inaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan inagu inaynu baqanaba maaha waayo dhamaanteen gurood baynu nahay xorriyadeena lutilixinkii waana nagu simanahay ninna ku eedeyn maayo waxaynu balana midnimo wax wada qabsi baadidoon loo midaysan yahay qarankooda wada ilaaliyo in la isu dul qaato inaynu mustaqbalkan ka fiican aynu joogno dhawaan gaarno ayaynu bala dhamaanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh